بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 661 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. رواه البزار في مسنده والحديث حسن. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 25 bishii 10 shawaal sanadka 1446 isla markaana waafaqsan 23 bishii 4 sanadka 2025. waxaanu ku jiray kitaabkan ugu magac daray almuntakhabu min saxiixi sunan nabawiya, qaybtii ku saabsanayd fadaa'il alxaj, الترغيب في الحج والعمرة. xajka iyo cumrada iyo isticleysiinta iyo fadaaisha ay leeyihiin ilaa laba qaybood baanu soo qaadanay. xajka iyo cumradu la israaciyo fadliga ay leeyihiin. waxaa kaloon soo qaadanay xajka iyo cumradu dadka jihaadka tabarta aan maartay u haynin ama jihaadka laga rafciyoona jihaadku uusan ku waajibin, inay xajka iyo cumrada bedelkiisa inay la yimaadaan oo jihaad u yahay qofka waayeelka iyo qof cunuga, qofka yar iyo qofka daciifka ee xanuunsan iyo qofka dumarkaba, afartaas sinfi jihaadkoodu inuu xaj iyo cumro yahay baanu soo qaadanay. maanta waxaan qaadanaynaa fadli kale oo saddexaad oo xajka iyo cumradu ay leeyihiin. wuxuu nabigu sheegay, ciwaanka waxaanu leenahay alxujaaju walcumaaru wafdullahi. dadka xujayda iyo dadka muctamiriinta waa wafuudullaahi weyn, wafdiga ilaahay weeyaan. ilaahay subxaanahu watacaala bay wafdi u yihiin. waa sharaf weeyaan, aana cid kula tartamaysa aana jirin. ninka xaajiga ah iyo ninka muctamirka ah waa wufuud raxmaan baa layihahdaa. allah raxmaanka wafdigiisa wey, maarata ilaahay subxaanahu watacaala bay wafdi u yihiin. xadiidkeenan waa xadiid xasana wey. alimaamu طabaraani yaa musnadkiisa kusoo saaray, alimaamu bazaar yaa musnadkiisa kusoo saaray, waana xadiid xasana. sheekh abdullah raxmatullaahi calayhi saxiix tarkiib wa tarhiib iyo keyrkiiba xasan buu kaga dhigaya. intaa markaan ka gudubno, xadiidka muxuu yahay macnihiisa oo kooban. jaabir bin cabdillaahi radi allahu tacaala canhuma wa ardah ba wuxuu lehy rasuulku ka warinayo, nabiga wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam: alxujaaj, xaaji baa xujaaj lagu jamciyaa. alxujaaju dadka xujayda ah iyo walcumaaru dadka maaragtay muctamiriinta ah, wafdullaahi wafdiga ilaahay weeyaan. wa wufuud raxmaan weyn, ilaahay bay wafdi u yihiino beytkiisi bay soo booqanhayaan. beytka ilaahay ninka soo booqdana waa wafdigii ilaahay subxaanahu watacaala. haddaba dacaahum, waa kan dacaahum, ilaahay baa u yeedhay inay beytkiisa yimaadaan oy usoo cumraystaan oo usoo xajiyaan. faajaabuuhu, ilaahay subxaanahu watacaala way ajibeeno dacwadiisii iyo dhawaaqiisii way aqbaleen. wasa'aluuhu, ayagona waxbay ilaahay weydiisteen oo faacdaahum waa siiyey su-aashoodii, makfiradii, dembi dhaafkii iyo wixii lamidka aba. markaad garanaysaane xajka fadligiisa waxaa ka mid ah xajka mabruurka ah ee macaasida iyo xumaan laga ilaaliyey, abaalkiisu waxaa weeyaan waa janno wey. abaal male ilaa janno mooyaane. saa darteed ilaahay subxaanahu watacaala xajka markuu ugu yeedhay way ka aqbaleen. waadin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaala, waa alla subxaanahu watacaala uu nabiyullaahi ibraahim lala hadlayay. dadka u sheeg ha yimaadeen oo ha soo xajiyeen. gaadhsiinta iyo waafajinta annagaa iskale, laakiin adi sawdkaada gaadhsii baa li. marka dacaahum, ilaahay baa u yeedhay. faajaabuuhu way ajiibeen, way aqbaleen ducadiisii iyo dhawaaqiisii iyo u yeedhitaanka kale ee xaji ayuhannaas xujuu la yidhi, walilaahi cala annaasi xiju lbeyt man istadaaca ilayhi. way aqbaleen. wasa'aluuhu, ayagana way weydiisteen oo faacdaahum waa siiyey. waxay ilaahay weydiisteen oo makfiro iyo dembi dhaaf iyo maaragtay fadli iyo intuba ilaahay subxaanahu watacaala dadka xujayda ah wuu siiyey. idan halkaa ikhwatii fillahi waxaanu ka qaadanaynaa xajka dadka xujayda ah iyo dadka muctamiriinta ah waa wufuud raxmaan wey. allah raxmaanka wafdigiisa weeyaan. waa wufuud raxmaan, ilaahayga raxmaana wafdigiisa weeyaano waxaa weeyaan waa sidaasay ayay maaragtay ku sharfan yihiin oo ilaahay bay marti u yihiin. magacaasaana loo bixiyey xujaajta iyo muctamiriinta wafdullaahi wey. nabi maxamed baa saa yidhi, marka wafdiga ilaahay weeyaan.
إذن أخي الكريم وأختي الكريمة وفتي إلهي هداد نقطي كوى إلهي مرتضى هو هداد نقطي كورا فضلك يقيمها إلى ذهي دعاهم وأويا فأجابوه ويأجيبين وسألوه وين ويديستين فأعطاهم إلهي سبحانه وتعالى سي انت كدب إخوتي في الله حجك فضائشيس aad bay u fara badan yihiin mana wada gaari karo oo waqtiguna nooma saamixi karo inta aan diyaariyey ee xajka fadaa'ishiisa iyo waxyaabihiisa ku saabsan ilaa marka tobaneeye ku dhowaad bay dhan yihiin waxaasoo dhanna kama wada bixi karo marka berri baan insha allahu tacaala oo khamiisaan soo gebagabaynaynaa wixii fadaa'isha aan ugu talagalay fadaa'ishiisa waxaa ka mid a damaanada ilaahay waxaa ku jira saddexda qofa ilaahay uu damaano qaaday waxaa ka mid a maaragtay qofka xaajiga ayaa ka mid a sidoo kale nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay inuu xajku wixii dembiga ka horreeyo o dhan u baabi'inhayo maaragtay ayuu sheegay intaa iyo kayrkoodba iyo fadaa'il badan ayaa maaragtay ku soo aroortay xaajigu markuu talbiyeysanayo oo labayka allaahuma labayka uu leeyahay wuxuu nabigu noo sheegay koonka o dhan inuu la talbiyeysanayo wax allaale wixii midigtiisa jooga iyo wixii bidixda ka ah ama dhagax ah ama geed ah ama dhir ah ama dhooba ah ama ciid ah ama dhul ah waxaasoo dhan baa la talbiyeysanayo oo maaragtay warkiisa ayagana la jiibinhayo o la qaadanhayo sidoo kale dhagax tuurka markuu qofku dhagax tuurahayo nuur baa ilaahay subxaanahu watacaala oga dhigahaya carafa istaageeda musdelifo barigeeda waxaasoo dhan waa acmaasha xajka fadaa'il badan bay leedahay marka si aanu hore ugu degaan degno oo maaragtay maynkiisa aan u galo qofka xajka ku waajibay waa kee shuruudda laga raba maxay tahay mawaaqiiddu maxay yihiin arrimahaasaan usii gelaynaa insha allahu tacaala marka berri baan soo gebagabaynayna wixii ku saabsan fadliga idan maanta waxaanu qaadanay qodobka saddexaad oo fadaa'ishiisa ay tahay ninka xaajiga ee muctamirku waa wafdiga ilaahay weeyaan ilaahay baa u yeedhay oo way ka ajiibeen ayagana ilaahay bay weydiisteen waana siiyey ilaahay subxaanahu watacaala wixii ay ka baryeen oo maaragtay wuu siiyey oo dembi dhaaf iyo makfiro iyo wixii ku saabsanba ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu naga dhigo kuwa wufuudda ah ee maaragtay ilaahay wafdigiisa noqonhaya cid kastoo awood u leh inay ka qayb qaadato ayaa fiican haddayna duruuftayna u diidin ilahay kii duruufta u diidayna niyadiisaan insha allahu tacaala aanu ilaahay subxaanahu watacaala u ka thawaabinhaya hal mar baan xadiidka lafdigiisa ku celinhaya alxadiidu 661 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم رواه البزار في مسنده والحديث حسن هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.